kulanti wanaagsan daawadayaal halkan oo warbaahinta Soomaali weyn production kula soo dhawaada barnaamijyadeena qodobada caawa ku daawo doontaana hadduu rabiidmo waxaa ka mid noqonaya saaxiibadii General Farxaan Qaroole oo ka mid ah saraakiisha ciidamada Haramcad oo sagaal ka mid ah maanta ku geeriyooday dagaal ka dhacay duleedka degmada Basra ee gobolka Shabeellada Dhexe xilli taageerayaasha madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ku eedeeyeen Mahasalaad inuu dabar goonayo saraakiisha dhalinyarada ah ee ciidamada Haramcad haddaba waxaan idin wadaagi doonaa hadalayn weyn oo ka dhalatay dibgeerida saraakiishii ugu dhawaa Allah u raxmaday taliyihii qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir General Farxaan Qaroole waxaanu barnaamijyadeedkan idinku bayaamin doonaa magacyada saraakiisha lagu dilay howlgalka Basra ee lagu tilmaamay inuu ahaa mid shirqool ah wararkii ugu dambeeyay ayaynu idin soo gudbin doonaa qodobadeena kale waxaa ka mid noqon doona lafta gareen oo safar qarsoodi ah ku tagay Itoobiya xilli uu wacad ku maray inuusan u dul qaadan doonin qorshaha lagu go'doominayo koonfur galbeed oo ay waddo dawladda dhexe ee Soomaaliya Cabdicaziz Xasan Maxamed lafta gareen oo hadal caarar la sheegay isla markaasina soo qoto dheer kaga hadlay dagaalka kala dhaxeeya dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaynu idinku soo gudbin doonaa barnaamijyadeena macluumaadka kale waxaa ka mid noqonaya ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo qarax joog ka noqday talada dami jadiid haddaba Rooble miyuu ku khasaaray afgambigii madaxweyne Farmaajo qurbadaas iyo kuwa kale ayaan idinkula wadaagi doonaa hasaatee marka hore dhammaantiin waxaan idinka codsanaynaa inaad nagala qayb qaadataan faafinta wararkan isla markaasina muuqaalkan like dhadaan lana wadaagtaan saaxiibadiina kala mahadsanidin haddii aan ku bilaabo wararka laga helayo gobolka Shabeellada Dhexe ayaa ku waramayo in duleedka degmada Basra ee gobolka Shabeellada Dhexe lagu dilay qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada Haramcad ee saaxiibada dowla ahaa taliyihii hore ee qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir marna soo noqday taliyaha ciidanka gaarka ah ee Haramcad Allah u raxmaday General Farxaan Qaroole wafayna dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaalkan dhaliyay khasaaraha kala duwan ee isugu jira dhimasho dhaawac oo ciidamada dawladda iyo al-shabaab ku dhaxmaray inta u dhaxaysa Basra iyo Balcad oo ka wada tirsan gobolka Shabeellada Dhexe dagaalkan ayaa warar kala duwan ay ka soo baxayaan iyadoo wararku ay sheegayaan inay ku geeriyoodeen 9 xubnood kuwaas oo isugu jira saraakiil iyo askar ka mid ah ciidamada dawladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa booliiska gaarka ah ee Haramcad oo ay ku jiraan xubno si weyn ugu dhawaa taliyihii hore ee qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir Allah u raxmaday General Farxaan Qaroole dawladda Soomaaliya ayaa guulo ka sheegatay dagaalka ka dhacay inta u dhaxaysa Balcad iyo Basra oo ka wada tirsan gobolka Shabeellada Dhexe waxaana ay sheegteen inay ku dishay 19 ka mid ah dagaalamayaasha al-shabaab halka shabaab dhinacooduna ay sheegteen in weerarka ay ku dileen 12 askari isla markaasina ay la wareegeen deegaanadii jimcihii hore laga qabsaday marka laga soo tago weerarkaasi lagu dilay askartaasi qaar ka mid ah taageerayaasha madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si weyn u faaqidayo dilka loo geystay sagaalkan ka mid ah dhalinyarada ciidamada booliiska gaarka ah ee Haramcad isla markaasina saaxiib dhow la ahaa taliyihii hore ee qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir General Farxaan Qaroole oo isaguna la sheegay in lagu dilo weerar shirqool ah kaasi oo si weyn loo hadlayo waayadii ugu dambeeyay askartan ayaa inta ugu badan waxaa la sheegay in ay ahaayeen kuwa saraakiil ciidan ah isla markaasina mustaqbal wanaagsan leh iyadoona mid ka mid ah saaxiibada madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qoraal uu soo dhigay mareegtiisa Facebook oo ku yiri waxa beegsi gaar lagu hayaa saraakiisha iyo ciidamada booliiska gaarka ah ee Haramcad waxaana dhalinyarada sawirkooda aragtaan saakiin lagu dilay deegaanka Basra ee gobolka Shabeellada Dhexe kaasoo ah weerar shirqool ah oo lagu dilay Mahasalaad waa nin ciishoon oo ay ka go'an tahay xasuuqa ciidamada Haramcad dawladda iyo wadamada taageero waa inay baaris caalami ah ay ku sameeyaan dabargoynta agaasimaha nisa Mahad Maxamed Salaad uu ku hayo ciidamada Haramcad iyo xasuuqa joogtada ah ee ka socdo deegaanka Basra oo toddobaadkeenu ka soo gudubnay jimcadii lagu dilay taliyihii qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir General Farxaan Qaroole warma kale uu soo qoray mid ka mid ah taageerayaasha sida weyn ugu dhow madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isaguna waxa uu ku yiri geesiyada Haramcad oo cashir u dhigayo kooxda al-shabaab xilli agaasimaha nisa Mahad Maxamed Salaad uu ku mashquulsan yahay dabargoynta ciidamada Haramcad hadaladan oo ay saaxiibada madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay saacadii la soo dhaafay ku wadaagayeen mareegyada ay ku kulanto bulshada ayaa u muuqda in ay tuun xoogan ay ka qabaan taliyaha nabad sugidda Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad in weerarkii maanta lagu laayay 9 ka mid ah saaxiibadii General Farxaan Qaroole inuu ahaa mid qorsheysan isla markaasina la doonayay in saraakiishaasi lagu qaarijiyo si aysan u bixin macluumaad ku saabsan qaabka uu dhacay dilka
taliyihii qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir jenaraal farxaan qaroole. mahad maxamed salaad taliye hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyada nisa ayaa horey waxaa eedayn ugu jeediyey taliyihii hore ee hay-adda sirdoonka soomaaliya fahad yaasiin xaaji daahir isagoo ku eedeeyey in xiriir toosa uu la leeyahay dagaalamayaasha al-shabaab. sidoo kale waxa uu ku eedeeyey inuu fududeeyey weerarkii lagu dilay allah u raxmadee sargaaladii ka tirsaneed nabad sugidda soomaaliya ee ikraan taliil faarax la oran jiray, taasi oo ilaa iyo haatan waxba layska weydiinin xilligii dowladdii madaxweyne farmaajona lagu cadaadin jiray in kiiskaas baaritaan ay ku samayso. hase yeeshee hadda uu nabad sugidda uu joogo mahad maxamed salaad ayaa kiiska meel la iska dhigay. kiisaskii ugu dambeeyey ayaa muujinayo caddeynta hadalkii uu sheegay fahad yaasiin xaaji daahir taliyihii hore ee sirdoonka soomaaliya, kaasi oo eedeynta ugu jeediyey mahad maxamed salaad taliyaha sirdoonka soomaaliya. geesta kaleetana madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa safar qarsoodi ah waxa uu ku tegey dalka ethoobiya. wararka laga helayo magaalada baydhabo ee caasimadda kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa sheegayo in madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen uu safar qarsoodi ah uu ku tegey magaalada asaabe ee dalka etoobiya, isaga oo u dabamareeyey madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud. cabdicasiis laftagareen oo ay dowladda etoobiya horaan ay ballan wada dhigteen isla markaasina dowladda etoobiya hubkii ugu cuslaa ay ku taageertay ayaa mar kale la kulmay sidii la xaqiijiyey saraakiil ka tirsan sirdoonka etoobiya oo ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay in cabdicasiis laftagareen uu wax ka weydiiyey saraakiisha sirdoonka etoobiya qodobada ay isla meel dhigeen madaxweyne xasan sheekh iyo ra-iisul wasaaraha waddanka etoobiya, iyadoo lagu qanciyey madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen in qodob lid ku ah dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya in aanan lagu soo qaadin. wadahadaladii dhex maray madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha waddanka etoobiya doctor abiy axmed cali laftagareen oo maanta ku soo laabtay magaalada baydhabo ee caasimadda kumeel gaarka koonfur galbeed soomaaliya ayaa isaguna waxa uu ku dhawaaqay in dowlad goboleedkaasi uusan u dulqaadan doonin qorshe uu sheegay inay waddo dowladda federaalka ee soomaaliya taasi oo lagu go'doominayo dagaalada socda. ayuu sheegay in dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya aysan qaadan doonin in la go'doomiyo, waxaana uu sheegay qorshayaasha dowladda federaalka ee soomaaliya ee dagaalka dalka ku gelisay iyaguna in dhinacooda ay ka qaadan doonaan isla markaasina ay xoreyn doonaan deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya. koonfur galbeed ayaa hadda inta ugu badan waxaa gacanta ku haya dagaalamayaasha al-shabaab, iyadoo gulufyada ka socda gobolada dalkana inta ugu badan shabaabkii ugu badnaa waayadii ugu dambeeyey ay saldhigteen deegaano ka mid ah maamulka koonfur galbeed, maadaama gobolada hiiraan, galgaduud, mudug iyo weliba gobolka shabeellada dhexe guluf xoogan ay ka socoto. waxaana cabdicasiis xasan maxamed laftagareen uu sheegay in qorshaha fila soomaaliya ee waddo isla markaasina godoon lagu gelinayo uu yahay mid lagu kicinayo bulshada koonfur galbeed. waxa uu sheegay xubnihii uu la kulmay in uu ka hortegi doono wax walba oo lid ku ah danaha dadka koonfur galbeed, siduu hadalku dhigay hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed. ugu dambeyntiina ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa qoraxjoog ka noqday talada damul jadiid, iyadoo rooble la sheegay inuu ku khasaaray afgembigii uu talada kaga riday madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo. ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya maxamed xuseen rooble ayay maanta kaamiraduhu ay soo qabteen isaga oo meel qura kala qadaynayo mid ka mid a taageerayaashii madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo. rooble oo horaantan ku guuldareystay in loo magacaabo safiirka dowladda soomaaliya ee waddanka imaaraadka carabta maxamed xuseen rooble ayaa la filayey in loo magacaabi doono xil muhiim ah oo damul jadiid uu ku heli doono. hase yeeshee dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu ka noqday mid qorax joog ah, isla markaasina waxaa la arkayey maalmihii ugu dambeeyey isagoo bulshada sida caadiga ah shacabka la mid noqday, isla markaasina miisaankiisii siyaasadeed uu lumay markii uu talada uu ka tuuray madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo. qofna ma filanaynin in rooble uu heerkan uu gaari doono ama siyaasaddiisa in isaan ay u lumi doonto. si kastaba ha noqotee maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya ayaa si weyn loogu maadaystay, iyadoo dadka qaar ay soo qorayaan ninkii rooble ahaa ee sida weyn saameynta ugu lahaa siyaasadda soomaaliya hadda waxa uu marayaa inuu ka soo cararo waddanka kenya, isla markaasina uusan ku noqon karin sweden kadib markii brofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed horey dacwad uu kaga gudbiyey. brofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed ee haatan ku dhegan maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya isla markaasina ciriiri geliyey ayaa waxa uu ka tirsanayaa ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya maxamed xuseen rooble in talada waqtigii uu hayay uu afduub u geystay, isla markaasina awoodda talada soomaaliya uu kaga faa'iidaystay. gudaana daawadayaal intaas ayaan kusoo meeraya barnaamij jaraadka aad kala socotay warbaahinta Soomaali Weyn Production tan iyo kulanti dambe nabad iyo warsan.